waxaa xog igu soo gaartay oo aan xog cad oo aan ku maqlay xog in rabo inuu samaysto baasaboor Kenyaati rabana inuu u duulo dalka Canada dacwad loo xareeyo. I'm talking the government of Kenya. She's another Kenyan garyaqaan. wuxuu rabaa inuu ka furto baasaboorkii inuu qaato rabaa wuxuu rabaa sharciga inuu qaato lacag ku qaato ana idin soo diray magaciisa saddexaad Mahad Maxamuud Xamro his name wuxuu rabaa inuu aado Canada baasaboor Kenyan ku aado. Welcome to Canada. Nicky Bon Xamarawa wuxuu ii fadhiyaa Nairobi al ii fadhiyaa ilan ilaahow adoonkaaga ahaye ilan shoodam maxay ugu sheegi waydin war maxaad idin soo socodsiin waysan oo ii dhihi waysan ninkii Nairobi u jooga wallaahi alcadiim ninkii maantii waxaa la ii soo diray ninkii maanta xaafad Soodsii la dhahayo agteeda degan qolo familigiisa isla socdaana qof ka oo ka dambeeyay screenshot iga soo qaaday ii soo diray noloshii aad igu caayeysay oo aad igu fadeexaysanayso igu bahdilayso oo rabta aniga igu bahdishay oo rabta inaad qof xun igaga dhigtid maanta labadan ayaa ku nool adama ku nooshay maanta nolosha ma taqaan xamar ma ku haan weyday gobolada Soomaaliya kuma haan weyday hadda socod ku bilaado marka ha istaagin marka ha istaagin haddaad istaagto oo aad meel ku harsato wallahi ibn xalaal ha istaagin waxaa xog igu soo gaartay oo aan xog cad oo aan ku maqlay xog in rabo inuu samaysto baasaboor Kenyaati rabana inuu u duulo dalka Canada dacwad loo xareeyo. I'm talking the government of Kenya. She's another Kenyan garyaqaan. wuxuu rabaa inuu ka furto baasaboorkii inuu qaato rabaa wuxuu rabaa sharciga inuu qaato lacag ku qaato ana idin soo diray magaciisa saddexaad Mahad Maxamuud Xamro his name wuxuu rabaa inuu aado Canada baasaboor Kenyan ku aado. wiliga Allah waxa la yiraahdaa qof wiliga Allah in ama godob ha ka gelin sharcan oo nin dhalinyaro oo walaalkiisa wiil Soomaaliyeed wuxuu ugu dhaqmaa markiisan